أنا مشاركة أنا بغصان مشاركة أنا بهنا بحكي لهم نمر وحرب ما تينا تفافلو مقال كانت صدى وتين إذا مدانو وإذا مديان ويجي هور مقال كدياريني إلو حل ساري أمنيك مقالة مقدشو إذا مدي مانتي وعي تاقين غلب كوين بغينا ومدي سوماليين مقالة كل أولاد إذا مدى أمهد عليسي أيي تاقين شيادين تيبان كور تاقين وينو كوريقينا هذا ما محاسبة بي حربنا سببتك انت يارنكا inaynu si fiican u tafaafulno tala xumada iyo qoomda xumada dowladda xasan sheekh maxamuud ayadana waxaynu rabnaa si fiican inaan u tafaafulno waxaan kaa codsanayaa muuqaalka intaana guda gelin inaad shan furood iyo calaacal muuqaalka saartid haddii aan ku bilaabo xasan sheekh maxamuud maalintii la doortay wuxuu heshiis la soo galay dowladda aynu cadowga nahay ee imaaraatis dowladda aan noo ogolayn nabad noo ogolayn nolol noo ogolayn horumar noo ogolayn asagoo ku xumaynaya dowladdii asaga ka horreysay ayuu dhidhidhi inta yidhi ayadoo la dhaarin oon xilka madaxweynaha loo dhiibin ayuu imaaraatis tegey heshiisyo tiro badan buu la soo galay heshiisyadii uu la soo galay xasan sheekh maxamuud dowladda imaaraadka waxaa ka mid ahaa ciidamadan amniga magaalada muqdisho loo xil saaray inay ayagu gacanta ku qabtaan ciidamadii eletariya lagu soo tababaray inay ayagu gacanta ku qabtaan oo ay mushaarka siiyaan haddaba maxaa xigay imaaraadku dadkii soomaaliyeed dowladdii federaalka ahayd iyo maamuladii ayaa kala shaxaadaya waxa uu walba qandaraas hore ula galay oo si ka madax bannaan dowladda federaalka oo heshiis ula ahay maamulka puntland oo dowladdii federaalka ahayd oo dowladdan ka horreyday intaad ogeydeen u hanjabaysay oo maamulka puntland daraaddiisa safiirkii fadhiyey imaaraatis loo herdeeyey oo aad ogtihiin oo xiriirka loo gooyey oo aan nabad iyo heshiisu naga dhahayn sababtuna waxay ahayd dowladdan ka horreyday sistamka adduunku wax ku maamulo ayay wax ku maamulayeen annagu waxay taagneen soomaali baynu nahay dowladahanaga iyo dowladda federaalka iyo maamulada dowladda federaalka ku jira gaal dilaa layidhi gartiisana si lalama kala heshii karo waxaan dowladda federaalka soo marina maamul ma tegi karaan intaasu imaaraatis waa diiday oo waa kii berbere heshiiska ka galay waa kii boosaaso heshiiska ka galay dowladdii dhexe markaa jirtana saabay kula dagaashay toobiga inaa ka baxo dooni maahe imaaraadka maamulka puntland horeba uu naas nuujinayey isagoo danihiisa ka hoofsanaya waxaa dhacday dani iyo waxaa isku dhacay xasan sheekh maxamuud ama dowladdii federaalka ahayd iyo maamulkii puntland baa isku dhacay haddaba dani haddaad xasuus leedihiin markii doorashada loo diidayo dowladda federaalka taagneed doorasho ma dhaxayso waxau u duulay imaaraatis heshiis cusub buu la soo galay heshiiska cusub oo dani la soo gala waxaa ka mid ahay in dowladda federaalka la xagaldaaciyo dowladda federaalka ayaa heshiiskiisu ka mid ahay ayada imaaraatisuna waxay ka masayrsaneed maadaama aysan ogolayn dowlad soomaaliyeed oo hana qaada nabadda ciidamadaas ay magaalada muqdisho ka dhaliyeen ayay ka xanaaqsaneed amarkii dani bay qaateen ciidamadii mushaarkii baa laga goostay dowladdan maanta jirtaahu balenbiin ma samayn waa isku dhexyaaca iyo dowlad xumada dowladda xasan sheekh maxamuud haysatay ka mid tahay sistem baa dowladda loo dejiyaa balen e iyo balen b iyo balen c baa loo dejiyaa waxaasu hadday noo suura galaan waa noo suura galeen hadday suura geli waayaan maxaynu samaynaynaa saa iyo saa baynu samaynaynaa ciidamadii fashil bay maanta taagan yihiin mushaar la'aan bay marayaan waxay marayaan magaaladii muqdisho inay kala xirtaan waxay marayaan inay dhahaan xuquuqdanadii hanala siiyo dowladda maanta jirtana qasnad hadda wax ma gashato adiguna waa taqaanaa anna waan aqaanaa benveera isku sheegaynaa qasnadu wax uguma jirto dowladdan ka horreyday 6 bilood oo ugu dambaysay ayadaa isdabaraysay kaydkeeda ayay isku dabaraysay qof kasta oo soomaaliyeedna markhaatiyu ka yahay mushaar askari ma hunguriyey jirin mushaar shaqaale ma hunguriyey jirin dowladnimaday ka mid tahay waxyaalaha aas-aasiga dowladnimaday ka mid tahay in dadka shaqaalaha ee dowladda u shaqaynaya ee ummadda soomaaliyeed u shaqaynaya darahooda ka shaqaynaya hadduu noqdo ka dhulka xaaqaya hadduu noqdo ka xafiiska jooga hadduu noqdo askariga naftiisa noo huray mushaarkooda lama hunguriyeeyo adduunkana mamnuucay ka tahay wixii kaleba hala sameeyo waddanka adduunka ugu baahida badan
ciidankiisa iyo shaqaalihiisa dowladda ma hunguriyeeyo dowladu say u dhismeedaan ku weydiinaa dowlad ninkii shaqaynayay oo mushaar qaadanayn sidee ku shaqaynaysaa maanta dowladda jirtaahu qasnad ma samaysan wasiir bayle ummadda Soomaaliyeed waa u darsadeen labadii biloodba marba miidiya soo fariisay jiray soo dhigi jiray 50 milyan baa noogu jirta bangiga naga badan hadii dowladdu waxna sii waayo maantay hay noo haysaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxa noo sheegto ciidamadan annaga u baahan magaaladii bay noo xasiliyeen nabad bay keeneen uma baahanin maanta ciidamadaas inay caroodaan in maantay Xasanow gadaal aad ka soo bilowdin uma baahanin ciidamada mushaarkooda la siiyo xaq bay leeyihiin xaquuq bay leeyihiin ummadii Soomaaliyeed ba u baahan annaga u baahan hadaynu shacabnahay waynu ku seexanay in xaqooda la cuno ama xaquuqdooda la cuno Xasanow ka yeeli mayno waxaad rabtid cun laakiin shaqaalaha dowladda iyo ciidamada dadku u baahan yihiin ee dadka reer Muqdisho ay caleemaha ku soo dhaweynayaan oo ay u duceeyeen in maanta la kala dhintaalo ka yeeli mayno waxaynu hore kaaga weynay imaaraatis dannooma haye ka joog Xasanow war Xasanow ka joog baynu ka weynay maantay ku haysataa ka xaabe maantay ayay ku haysataa aw arab jeclaayow meeluu nagee wallaahi oo billaahi oo tallaahi mar labaad iyo mar saddexaad baan ku dhaaranayaa maanta wadan carbeed oo doonaya inay Soomaaliya dawlad noqoto oo dan ugu jirto oo noo dhow day noqoto imaaraatis day noqoto Sacuudi day noqoto Yaman day noqoto xitaa Suudaan ba ku dar wadan carbeed doonaya maanta inay Soomaaliya dawlad noqoto ma jiro Liibiyo oo ay noo dhaxayso afar wadan oo Afrika naga xigto ayaa maxaakiim nagu fangareynaysi ayaa burcadada fangareynaysi waa halka Carabu joogto calooshoodu waa kaasa aqiidan beenta runa u qaadan war adeerow Xasan Sheekh Maxamuudow wadaninima loo baahan yahay dal jacayl tuugnima ma rabno anagu waxa rabnaa dal isku filan iyo dad isku filan baynu rabnaa dawladii adiga ka horreeyday systemkii ay dajiray ee quruxda badneed qolaba waxbay ku fiican tahay war qofka adiga ka horreeyay wuxuu ku wanaagsan yahay waa la qaataa waxa aad ku diidantana waa laga tagaa haddaad si xun wax u aragtay oo dawladii adiga ka horreeyday aad ku dhaliilsaneed qaabka ay arrimaha gudaha u wajahaysay kaliya waxa la rabaa arrimaha gudaha inaad bedeshid arrimaha dibadda inaad taabato ma ahayn dawlad ku gaartaa dawladdaas arrimaha dibadda wadanka gudihiisa waxay rabtaa samaysay ma jirin Xasan maantay ma ku dhacaa Xasan inuu safiir ku xigeen wadanka ka buriyo ma awooda marka uu tago soo leeyahay kartida ama leeyahay kartida iyo adayga iyo Soomaalinimada waa loo war Soomaali baa tahay tuugnimo ninka la yiraahdo maamul xumo isku dhaxyaa ugu dambeyntii dawladda Xasan waxaynu ka codsanaynaa war mandate haysataa mandate-kaada intaad haysatid ciidamada mushaarkooda si annaga u baahan ciidamada mushaarkooda iyo xaqooda si waynu u baahanno waynu ku diirsanay ayagaynu doonaynaa kuwa kala dooni mayno yaa la xagal daacin yaa la niyad jabin yaan horumarka ay sameynayaan la hor istaagin sidaa man dawladda Xasan Sheekh Maxamuud kula dardaarmaya adigana waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad gaarsiidid qof kasta oo wax ka qaban kara inaad gaarsiidid waa codsi walaal dantaada iyo taydan ka shaqaynaynaa taada ka shaqeey oo muuqaalkan gaarsii lagama taga maanta kale sidaa ma dhowro karno ciidamadana kuma dhowro karno shaqaalaha dawladda kuma dhowro karno 4 bilood ka hor ayaa askar ula soo xariireysay rag saraakiila oo qaar taagnaayeen warqod naga duub oo gudbi war mushaar la'aan baynu nahay 3 bilood inta waa la qarinayaa waa la qabiilaynayaa waxa la taagan yahay war maamulkii anaga naga horreeyay baa ku qoslaya hala qariyo taaba la taagan yahay muuqaalkan qaado meel fogaarsi aad iyo aad mahadsan tahay badda Soomaaliyeed bagooda burcada Allah isku mariyo dawlad caadil Allah na siiyo danaha anaga Allah na garansiiyo maalin kasta muuqaal duubo qaybta dambe waa ugu duceeyaa ummadda Soomaaliyeed waxayna iga tahay marbaad ku aadi doontaa samadu furan tahay oo Ilaahay ajiibi doona codkaada faafi adiguna walaalkay aad iyo aad u mahadsantiin